magaalada galabta ama caawa lagu ciyaaraya ciyaarta kulanka finalka aad ka xiisaha badan leh magaalada magaceedu waxa la yiraahdaa Sochi koonfurta Ruush ayuu ku taal taasoo ay ka dhici doono kulan aad u qaali ah galabta ama caawa ama fiidkii oo la rabay Lionel Messi caawana talo Cristiano Ronaldo ma lagu daraya magaaladan oo ah magaalo aad u qurux badan hawo fiican leh in badda madow eegaysa waxay kale ay leedahay masaajidka Yurub ugu weyn ayaa ku yaala magaaladan hadda joogno ay caan ku tahay kale beeraha iyo nabaataadka beerta ugu weyn adduunka uu ku taal nabaadka ka soo baxa aad u fara badan yahay oo magaalo aad u hawo fiican waxay kala caan ku tahay jaamacadaha ay caan ku tahay iyo masaajidka aan idinku tilmaamay inuu masaajidka Yurub ugu weyn yahay ay caan ku tahay haddaba waxa ku kulmaya Uruguay iyo Portugal oo taasoo ah kulankii ugu horeeyay weligood ay wada kulmaan koob adduun ay isku arkaan haddaba shacabka Portugiis gool waxa ugu jira Luis Bartes baasha bidixna waxa ka ciyaaraya Guerrero dhexda Guanti iyo Pepe Andrea Silva ayaa isna dhexda uga ciyaaraya xulka Portugiiska ku darso William Carvalho iyo João Mario Bernardo weerarka Gonzalo Jesus iyo Cristiano Ronaldo oo kabtanka fariiqa Portugiiska xagga kalena waxa ka soo jeeday Diego Godé oo aad ay isku yaqaanaan kabtanka fariiqa Uruguay kaas oo ay ku aad u ciyaareen Isbaaniska Liga Isbaaniska ay isku arkeen Atletico Madrid iyo Real Madrid haddaba shacabka Uruguay goolreses goolada difaacan waa Godé oo kabtanka fariiqa Godin iyo Khourenes oo dhexda difaaca ah Mike Sorner iyo Torneda oo dhexda iyaguna ka ciyaaraya Luis Suarez iyo Di Cavani oo labada weerarka ah laga baqayo Uruguay Oscar Carabes mutobaraha wata uu yahay tobaraha ugu daada weyn leh koobka adduunka weeraryahanka Manchester City ayaa madaxa ku sigay weerarka imka la wado Mendes Suarez Mendes wantu ayalka ka socda baasha midig Mendes ay waa kornigu horeeyay Uruguay imka ay hesho Diego Godin oo halka aad moodo in daafac haystaan si ruuxna uu digayo hada korniga waa la soo laagay la ku difaac Ronaldo ayaa taalisay oo sigay waa tijaabadii ugu horeysay Cristiano Ronaldo isku dayo goolka dibadda oo xoog u laago waana tii ugu horeysay xulka Portugiis iyo dhibay Suarez paasad u dheer Suarez waxa ka soo maray dhanka bidix Cavani ayaa la helay goolkii koobaad paas u dhiibtay iyo haddana ka xareeyay xulka Portugiiska gool Cavani ayaa u dhibay Suarez baa ku soo celiyay Cavani gool baasaska ugu qurux badnaa baa uu soo dhibay Luis Suarez saaxiibkii Cavani الله قروح بدر أقول كافاني سكوي بعد دونتهم كاتاليا بربط قوة عيارتك كافانيو ضاو باس يقروح بدر لوسوسي لويس سواريز